weligaa ma isweydiisay sababta ay midabka ilkaha isku bedelaan? midabka ilkaha sida saxda ah waxaa loogu talagalay inay noqdaan cadaan ama cadaan xigeen, balse marmarka qaar waxaa dhici karto inay ilkahaaga noqdaan jaalle, huruud ama madow. muuqaalkan ayaan kugu sharxi doonaa waxyaabaha kugu sababi karo inuu midabka ilkahaaga isbedelo iyo qaabka ugu fudud aad ilkahaaga ku caddayn kartid. balse intuusan muuqaalka bilaabanin waxaan kaa codsanayaa inaad muuqaalkan like saarto, sidoo kaleetana aad la wadaagtid saaxiibadaada si ay ayagan ugu faa'iidaystaan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. soo dhawaad dhammaan saaxiibayaal. si aad muuqaalka hordhiciisa ka soo aragtaybo, muuqaalkan waxaan rabaa inaan kugu sharxo waxa caafimaad ahaan loo yaqaano tooth discoloration oo ah inuu midabka ilkahaaga isbedelo. sida saxda ah midabka ilkaheena waa cadaan ama cadaan xigeen, balse marmarka qaar waxaa dhici karto inuu midabka ilkaheena isbedelo oo midab kaleeto oo ka duwan cadaan inuu noqdo, sida inuu noqdo jaalle ama inuu noqdo huruud ama madow. sidoo kale muuqaalkan waxaan ku sharxi doonaa waxyaabaha kugu sababi karo inuu midabka ilkahaaga isbedelo iyo qaababka kala duwan ee aad ku caddayn kartidba. balse intaan u gudbin qodobadaas waxaa rabaa marka hore inaan kala qaybino wax loo yaqaano tooth discoloration-ka. midabka ilkahaaga inuu isbedelo laba qaybood run ahaantii loo kala qaybiyaa. qaybta koowaad waxaa loo yaqaanaa extrinsic stain oo ah midabka ilkahaaga inuu iska bedelo qaybta dibadda ama qaybta inoo muuqato. sidoo kaleeto qaybta labaad waxaa loo yaqaanaa intrinsic stain oo ah inuu midabka ilkahaaga iska bedelo qaybta gudaha ah. mid walbana waxyaabo gaar ayaa sababo. waxaan u gudbi doonaa maxaa sababo ama maxaa keeno wax loo yaqaano intrinsic stain, ama maxaa keeni karo inuu midabka ilkaheena iska bedelo qaybta gudaha. waxyaabaha keeni karo way badan yihiin. waxaa ugu horeeyo number 1 wax loo yaqaano trauma oo ah inay jug soo gaarto ilkahaaga. jugta waxay noqon kartaa inaad shil aad gashid ama inaad dagaal aad gashid oo feer kugu dhaco ama wax kaleetaba. marka inuu midabka ilkahaaga iska bedelo qaybta gudaha waxaa keeni karo number 1 wax loo yaqaano trauma oo ah inuu jug soo gaarto ilkahaaga. sidoo kale waxyaabaha kale keeni karo inuu midabka ilkahaaga iska bedelo waxaa ka mid ah number 2 wax loo yaqaano age-ka oo ah da'da qofka. qofka mar walba uu sii weynaado waxaa isbedel ku imaanayo midabka ilkihiisa, sababtoo ah qofka ilkihiisa uu sii isticmaalayaa. marka waa xaalad normal xaaladda noocan ah. sidoo kale waxyaabaha kale keeni karo waxaa ka mid ah number 3 too much fluoride oo la micno ah in maado badan oo fluoride aad isticmaashid. xaaladda noocan ah inta badan waxay dhacdaa markuu iliga uu sameysmayo ama wax loo yaqaano tooth development-ga. marka qofka markuu ilkihiisa sameysmayaan oo markaas uu dhasho ama markii qofka ilkihiisa isbedelayaan oo ilka caanoodka ay ka dhacayaan, ilkaha kaleetay joogtada u soo baxayaan, hadduu isticmaalo maado fluoride badan waxay keeni kartaa inuu midabka ilkihiisa iska bedelo qaybta gudaha ah. sidoo kaleeto waxaan u gudbi doonaa waxyaabaha kale ee keeni karo inuu midabka ilkahaaga iska bedelo qaybta dibadda ama externalka. waxyaabaha keeni karo inuu midabka ilkahaaga iska bedelo qaybta dibadda waxaa ka mid ah number 1 wax loo yaqaano poor oral hygiene oo ah nadaafadda ilkahaaga inay liidato. markii nadaafadda ilkahaaga ay liidato, ilkahaaga waxaa ku sameysmayo huuro, kadibna ilkahaaga waxay noqon doonaan jaalle. sidaasi ayay huurada ku bedelaysaa midabka ilkahaaga. sidoo kaleeto waxyaabaha kale ee keeni karo inuu midabka ilkahaaga iska bedelo qaybta dibadda ah waxaa ka mid ah number 2 wax loo yaqaano smoking and tobacco oo ah inaad isticmaashid sigaarka iyo khaadka. sidoo kaleeto waxyaabaha kale ee keeni karo waxaa ka mid ah number 3 wax loo yaqaano medications oo ah inaad isticmaashid dawooyinka qaar. dawooyinka inta badan keeno inuu midabka ilkahaaga iska bedelo waxaa ka mid ah dawada loo yaqaano tetracycline. run ahaantii dawadan waxay keentaa haddii aad u isticmaashid waxay keeni kartaa inuu midabka ilkahaaga isbedelo, gaar ahaan inuu midabkaaga noqdo madow. sidoo kaleeto waxyaabaha kale ee keeni karo inuu midabka ilkahaaga isbedelo waxaa ka mid ah wax loo yaqaano foods and drinks oo ah cuntooyinka qaar iyo cabitaanada qaar. cuntooyinka inta badan ama cabitaanada qaar ee keeni karo inuu midabka ilkahaaga isbedelo waxaa ka mid ah number 1 shaaha, number 2 kafeega, number 3 sooska ama suugada wax loo yaqaano, iyo ugu dambeyn number 4 blueberry-ga. cuntooyinkaas waa cuntooyin ka mid ah waxyaabaha keeni karo inuu midabka ilkahaaga isbedelo. cuntooyin kale oo ka badanna way jiraan run ahaantii. waxaan u gudbi doonaa qaybta ugu muhiimsan muuqaalka oo ah sidee loo daaweeyaa xaaladda loo yaqaano tooth discoloration-ka ama qaabkaad ku daweyn lahayd
markuu isbedel ku yimaado midabka ilkahaaga. qaabab kala duwan run ahaantii lagu daaweyn kara xaaladda noocan ah. waxaa lagu daaweyn karaa number 1 wax loo yaqaan tooth whitening oo ah inaad ilkahaaga cadeysid. qaabab kala duwan ilkahaada ku cadeey kartaa. qaabka ugu horeysa aad ku cadeey kartid waa inaad dhakhtar ilkahaada booqatid kadibna uu ku sameeyo cadeynta ilkaha. sidoo kale adigoo gurigaaga joog ilkaha waad cadeysan kartaa oo waxaa jiro qalab yar oo la isticmaalo oo home bleaching loo yaqaano. sidoo kale qaababka kala duwan ilkahaada ku cadeey kartid waxaa kamid ah ama qaababka kala duwan midabka ilkaha lagu bedeli karo waxaa kamid ah number 2 wax loo yaqaan root canal treatment oo ah habka daaweynta dhuux dalida iliga. qaabkan waxaa inta badan sameeya dhakhaatiirta ilkaha. marka haddii aad u baahan tahay iyo in kale waxaad ku ogaan kartaa inaad dhakhtarkaaga ilkaha booqatid kadibna uu ku sameeyo xaaladda noocan ah. sidoo kale qaababka kala duwan ee aad midabka ilkahaada ku bedeli kartid waxaa kamid ah inaad gishatid ilkaha casriga ah gaar ahaan ilkaha loo yaqaan crowns iyo ilkaha loo yaqaan veneers oo ah lakab diyaarsan in la dul saaro iligaaga. sidoo kale waxaad ku daweyn kartaa haddii midabka ilkahaaga uu isbedelo wax loo yaqaan scaling and polishing oo ah inaad ilkahaaga dhaqatid. haddii ilkahaaga ay leeyihiin dhagaxaan wasakh ama huure waxaad ku nadiifin kartaa habkan loo yaqaan scaling and polishing. guud ahaan afartaas qaab ayaa loo daaweeyaa xaaladda loo yaqaan tooth discoloration ama midabka ilkahaaga inuu isbedelo. afartan qaab waa loo daaweyn karaa. anigoo run ahaantii kaaga mahadcelinayo daawashadaada muuqaalkan. waxaa mar kale kaa codsan inaad muuqaalka like saarto sidoo kale tan aad la wadaagtid saaxiibadaada si ay ayagana ugu faa'iideystaan. waxaa mar kale kugu casuumaya inaad kusoo biirtid akoonkeyga si aad ula socotid taxanaha caafimaad ee mar walba ku baahiyo xaggan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.